Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaaleyga qaaliga meel kasta adduunka ka joogtiin. Kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub. Insha Allah tacaala hadaa hore noola joogtaan la sii joog waa ku maasantahay joogaaga. Hadaa nagu cusubtaan insha Allah tacaala waxaan ka rajeeynaa inaad subscribe-ka noo saarto meesha gaduudna aad taabatid like-ta iyo comment-ga ku darto hadduu video ku cajibiyo insha Allah tacaala ana si share gaysaan rajeynaa oo sii gaarsiiso baayooyinka kale ama dadka kale oo xiiseenayo arrimaha uurka iyo waxyaabo ku saabsan waxaan rabaa inaan ka hadlo in yar oo ku saabsan luga bararka xilliga uurka la joogo. Gabdho badan ay soo qoray comment-ga aan ka arkay video-yada ku saabsan uurka iyo xanuunada foosha. Marka wallahi bararka lugaas bararka gabdhii aad ay ugu caawdeen oo waxay leeyihiin lugiya naga bararsan maxaan sameynaa. Luga bararka horta baay kaliga ma aha wax ku gaar ma aha waxa markay kaliga yihiin moogtahay waxay Soomaali dhahdaa kaliya waa la wareer waaye alwala waashin wanaag waaye intaas kabta waaye markay kaliya yihiin problem wixii markii lagu wada qabo waa normal. Luga bararkan waxa waa wax normal hooyadu markay uurka leedahay wiliba xilliyada dambe bilooyinka u dambeeyo luga bararka yimaado waa iska normal waaye wax dhibaato ma aha cunugan dhibaato uma keenaysa adigan dhibaato kuma keenaysa. Waxaa jiro markuu bararka oo dhinaca wajiga aad markaas daran oo waxaa jiro xanuun dhahayo dhiigga camal xanuunkaas wuxuu ku soo boodaa haweenka uurka leh wuxuu keenaa dhiigga kor aadayo wajiga barra iyo wuxuu keenayaa indhaha wax fiican ka arkayno caad uu ka saaran yahay iyo waxyaabahaas uu keeno iyo dhiigga uu sare marayo markasta dhakhtarka iska tag umulsaada u tag ka baarto dhiigga waxyaabo la mid video uga hadlayaan oo ku jira YouTube channel-kayga hore u sii baar. Marka luga bararkan waxaa keenayo walaalahay dhiigii oo hoos u soo dareerayo jirkii maadaama jirka tarkiisa hool badan oo haya uur leedahay waxa waaye shaqo badan oo jirkaaga haya marka dhiigii marka caloosha ee saas ugu imaado caloosha hoos imaado dhiigii meelaha ku jirna hoos ugu imaha markaas lugaha ka bararayaan waa wax caadi waaye culeyska xataa way keenay hooyada culeyska caloosheeda ku jiro wuu keenaya lugahaas bararsan. Marka waxa sameynaysaa laba waxa sameyn kartaa horto waliba luga bararka walaalahay idinkaga sii dhacay wuxuu badanaa oo zaid yahay oo gabdhaha badankood qaarkood ma arkaan qaarkood ma arkaan laakiin qaarka arko badanaa waxay dareemaan wadamankana joogno markii la xilliyada samarka oo kuleelka jiro oo Soomaaliya kuleelka jiro dabcan marka waxa laga yaabaa Soomaaliya inay u badan tahay laakiin xilligan qofka hooyada markay xilliga winterka amba winterka qabowga jirnaysan arkina laga yaabaa markaas oo kale kuleelka jiro waxa sameynay kuleelka iska ilaalinaysa meel qabow wanaagsanaysa guriga ku jiraysa oo maraxada shidanaysa hadii kale meel hoos ah fadhiisanaysa waa marka kuleelka jiro waaye. Waxaa kale sameyn kartaa lugaha kor u soo qaadi kartaa oo hadda gabadhaas ay sameynayso kale lugna way laabato lugna way raaricaysa marka lugta saas oo kale u raarici kartaa hadii kale meel saari kartaa adoo meel fadhiga ma arkano in fadhiisata asaa lugaha kor u soo qaadi kartaa amba in kursida ku fadhido xaalada waxa laga keen waxa sida marka cilaan lagu saarayo kala ma aragtaa asaas u saaranaysa lugaha kor mal u qaadaysa hadii kale waxa jiro walaalahay sagsaamanka la gashanayo waa sagsaaman oo waxa waaye oo jijiid ma laakiin dab ugu naqayo waaye afisiirish waxa la strombor laha strombor kaas waxa ka helaysa farmashiyaasha umulsaada la tasho ayada ku qoraysa walaakiin waa recept free waaye waa ka helaysa aad ugu fiican subaxda marka saas soo kacdo waa gelinaysa saasa idin sheega waa gabadhaas ay sameynaysa waaye oo iiso sheega lugaha u raaricinaysa waaye iskor ugu saarayso marka stroombarkaas ay dhaqaatiirta kula taliyaan gabdhaha uurka lugaha ka baran marka walaalahayga qaaliga socsoco qoraxda iska ilaali markay lugaha ka baran yihiin waaye hadii qorax aragtid meel hoos fadhiiso ama meel maraxad leh qabow fadhiiso si lugaha qabow kaaga noqdaan oo dhiiggaas u kala dago sagsaamankan idin sheegay ayagoo kala nooca jiro soo raaso farmashiyaha Soomaaliya I don't know in laga helo wallahi Soomaaliya ma aqaan in laga helo walaalahay waa ka xumahay laakiin say idin sheegay samee qorax iska ilaaliya markii lugaha ka barayay meel qabowta xataa biyo qabow waa dhex gashi kartaa way ku anfacaysaa lugaha meel kor saaro marka insha Allah in video ka heshaan rajaa wixii su'aalaha qabtiin hoos igu soo qoro aad muhiim igu tahay fikirkiin iyo su'aalihiin in hoos igu soo qortaan in video ka hesho oo wax ka faa'iido rajeynaya walaalahayga qaaliga aad ugu maasantahay ii soo booqatay waqtiga ay gelisay ay dhageysanaysid inta mar kale video cusub ku kulmeeno waa mahadsantiin insha Allah ta'ala. Assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.